وأكون عربية بيع علاج إلى الداعي النقطة دلك إيا دينتا. waa dhalinyaro Soomaaliyeed oo leeli saraakiil xigeenna loo tababaray kana soo baxay dugsiyada sare ee jaamacadaha dalka ku yaala waxa ayna maanta u dhaarteen inay dalka iyo dadkaba ka difaacayaan cadawga kadib muddo ay tababar ku soo qaateen dugsiga tababarka Turkisom ee magaalada Muqdisho kuwaas oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. hooyooyinkii aabayaasha ayaa garab taagnaa wiilashooda kuna dhiirigelinaya in dib loo soo celiyo libaaxyadii Afrika gaada ka ciyaarna ayay goob fagaara ah ka fiirsanayeen. waxay ka soo gudbeen ciidamadan oo kala ah cirka badda iyo dhulka tababarkii ugu horeeyay oo dhibooga ayagoona kor loogu qaadayay xirfadooda iyo kartidooda casharada iyo tababarka military. waxaan doonaynaa inaan mar kale ku muujino xafladan dhaarinta inaan nafteena u huri doono wadanka si farxad leh. taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sareeye gaas Daahir Aadan Cilmi Dhaqarsho waxa uu sheegay in marnaba shacabka Soomaaliyeed aysan iloobi doonin taageerada walaaltinimo ee Turkiga waxa uu dhalinyarada u jeediyay dardaaran ku aadan inay ka mar dhaliyaan hadafkooda. shacbiga Soomaaliyeed marnaba iloobi maayo taageerada maxaan ku raadaa dawladda iyo shacabka Turkiga markasta qalbiga qof kasta oo Soomaali waxa ku dhigan magaca madaxweynaha Jamhuuriyadda Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo tusay adduunka inayna suurtagal ahayn Soomaaliya in la iloobo. waxaan rabaa inaan si gaar ah ula dardaarmo leeli saraakiisha iyo leeli saraakiil-xigeenka meeshan taagan ee maanta la dhaariyay ee u socda mustaqbalka inay noqdaan aasaaskii amase maxaan ku radaa dhamaystirkii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ama bilowgii maxaan ku radaa kuliyadan quruxda badan leh maxaan ku radaa aad u qurux badan ee ka muuqata raggii ka soo baxay waxaan rajaynayaa inay berito noqdaan ragga ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed hogaamin doona. waxaa dib u soo laabtay rajada shacabka iyo kalsoonida lagu qabi karo in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed hanan karaan difaaca dalkooda waxaana taasi daliil u ah in shacabka ay bilaabeen gaar ahaan hooyooyinkii aabayaasha in caruurtooda ay u qoraan ka mid noqoshada ciidanka. maanta meeshan kuma soo koobi karno Turkiyada waxay nagu yihiin iyo qalubteena waxay ku tahay taliyaan uu ka dhawaajiyay xiriirka labada dal xiriirkeen insha Allah ta'ala mid si kordhi doona ayuu noqonayaa insha Allah ta'ala waxaana ka shaqeynaynaa sidii labadan dal oo walaalaha ah runtii qulubtooda loo ziyaadin lahaa aad ayaan kaga mahad celinayaa kasoo qaybgalkii dhamaantiina marti sharafta kasoo qayb gashay wali waxaa fadhiya waalidiinta askartan oo maanta meeshan tababarka u fadhiisa taasoo daliil ay u tahay inuu shacabka Soomaaliyeed iyo maamooyinka ay diyaar u yihiin wiilashooda inay nafta dalka u xuraan. deeqa uu karjiino warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Muqdisho.